تيك توك هو لايف كده ما بوان واي لايف كده ما بوان واي لايف كده ما بوان واي ما قرأت aniga ninkayga waxba iga dhacay wax bilaaya nagu kala dhacday il baa nagu kala dhacdan oran karaa il ayaa nagu kala dhacday sababtoo ah labadeedu waxaan laba qof oo smartiya laba qof oo iska masaakiin aan war badnayn laba qof oo iska shaqaystaan ahayn laba qof oo isku qanacsan baan ahayn waxbaan helay toodi marka anigu waxaan oran karaa horta waa iska nasiib wax qadar allana u daa qadar ilaahay waanu ducaynay inuu ilaahay aamiinta walaal soo qoro bilfadlan ilaahay waxaan u baryaa inuu cimrigiisa dheereeyo oo aan caruurteeda ayaan waa aabahooda aan dhibaato ku dhicin ayaan ilaahay uga baryayaa sababtoo aniga waxa weeyaan dhibka uu ii geystay ama waxyaabaha aan magaranaysaa iga soo maray ma doonayo inaan magaranaysaa aan ku habaaro waxa weeye inaan waajibigu ah inaan u duceeyo ma fahmaysaa aan u duceeyo problemka raaligaada waa qalbi jilicsanay markaan hawlaha galaban mooshi noqonay oohin ku waalanaya marka waxa weeyaan walaalayaal aniga horta shalay galab waan xanaaqay aad iyo aad baan u xanaaqsanaa waan murar dilaacay serious bana xalow dhan ma seexan ma garanaysaa dee laba qof oo waxaanu nahay aniguna waxaan qof wax jecel isaguna waa qof iga sii jeeda marka qof wax jecel iyo qof ka sii jeeda mar walba waxa dhiban qofka wax jecel ayaa horta dhiban aniguna waxa weeyaan anigu jacaylka waan aqaanaa bugaagta jacaylkaan akhristaa qisadii waxaan akhristaa ma garanaysaa cilmi boondheere iyo hodan waxaanay dadka jacaylka ka dambeeya heesaha waxaan ugu jecelahay heesaha jacaylka ah wallaahi beenidii ma sheegayo waxaan jecelahay oo anigu aan mar walba taageera dadka isjecel gaar ahaan waxaan aada u jecelahay dadka isqaba ee weliba istaageera xataa anigu waxaan ahay labada qof aan arko laba qof oo isjecel wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa isku qalqaaliya inay isguursadaan aniga jacaylka waxbaan ka aqaanaa because anaa la nool anaa jacaylka la nool aniga ayaa jacaylka la nool aniga ayaa hooyadiya aniga ayaa walaaltaaleeg way isoo wacayaan ma fahanti alla nimanku jalasaysana jalas baatiin wallaahi jalas inaadanaadhe nin walba naag ba haysta jecel maadi nabadgelisaan aniga ninkaygo aan jecelahay baa iga tegay ma fahanti mid kalena ma rabo mid kalena ma doonayo dee walaal idaaya bilfadlan dadkay soo wacayo walaalayaal idaaya ilaahayna ka baqo anigu ninkaygo aan jecelahay xaaraan maa haddaan dhado ninkayga waan jecelay aniga jacayl baan ku guursaday jacaylkii aan ku guursaday qabaa awlaad baan ugu dhalay awlaad baan ugu hayaa waa noloshaydii waa naftaydii waan jecelahay cimrigayga inta ka hadhayna waan jeclaanayaa I can't believe inaan nin kala jeclaan doonoba maba jiraba because waxaan anigu aaminsanahay maasha allah inaanan helaynba nin sagi oo kalaa anigu saasaan biliif garaysanay ma fahantay marka walaalow haddaad soo sharaxantay oo jidka kusoo jirto halkaaga iska joog hadeerba waan kuu sheegaya anigu qofka soo sharaxanay jidka kusoo jira maamadan usoo sharaxanow halkaaga joog walaalo naagtan waa naag soo gubay jeceshahay oo ka cararayay daba ordaysa iyaduna ma fahanti marka waxa weeyaan aniga isagoo i furay waan jecelahay forever noloshayda inta ka hadhayna waan jeclaanayaa because xamse iyo mustafe iyo nimco aabahood weeyaan adduunka wax ubad ka qaalisana maasha allah ma jiraan ilaahay baa iga siiyey anigoo keligaya buu i guursaday anigoo beela buu iga tegay meel aan ku nacana ma joogo ma fahanti meel aan ku nacona ma joogo ma garanaysaa aniga haddii calafkaygu dhammaadayna dee waan jecelahay stiil waan jecelahay ma fahanti baroortan iyo qayladan iyo ma garanaysaa buuqii iyo ma garanaysaa qayladiina waxaan raaligelinayaa asagaan ka raaligelinayaa ilmaaderadii baan ka raaligelinayaa walaaladii baan ka raaligelinayaa waalidkiisaan ka raaligelinayaa dumaashiyadoo dhan baan raaligelinaya wixii sodohayaha oo dhan baan raaligelinayaa dadkaygaan raaligelin maaderadii baan raaligelinayaa ma garanaysaa qofkii maanta igu soo caayi doono odhan doono naagtan waalatay ninka u waalatayna walaalayaal anigu waan jecelahay my love my husband
iigu soo duceeya igama habaari kartaan qofkii habaara ma cafiin because ma doonaya in la habaaro waxaan rabaa in laysugu kaayo soo duceeyo inuu ilaahay isku kaayo soo celiyo inuu ilaahay isoo sakhiro inuu ilaahay xaqa soo fahansiiyo inuu ilaahay sida aan anigu u jecelahay jacaylkayga iyo sharafta aan u qabo jacaylka iyo sharafta iyo wanaagga iyo kalgacalka aan u hayo inuu ilaahay tuso ayaan ilaahay ka baryayaa one dayna way iman doontaa waxaa laga yaabaa anigoo berrito aan u baahan ama aan jeclayn ilaal inuu isu jeclaado waa wax dhici kara hadduu noolaado haddii aanu jeclaan sidaa uu kala soconana dee nasiibkiisa waxa weeyaan anigu mar walba waanu ducaynayaa dasamaan waan aqaana khasaare iyo faa'iido labadaba iyo faa'iido labadaba because 100% qofka haddaad jeceshahay alla nimanka Soomaalidu xaasidsanaa waan inaan anigu waan sheego idima sharaxni walaal qofka hadeer bay soo wacayo kuma sharaxni maxaad iga soo wici naag laga tagay maanahay naag la nacay maanahay mid kalena uma jooga ku qafilan qalbigaygu waa ruux kale ma fahanti hadalku uu ku dhaafin walaal qalbigaygu waa meel mana qaado ruux kale qorshahana kuma andirin qadir eebe mooye qofan adiga hayn abid qoysina wadaagnay qaadir haygu kaasimo walaalo heesta bal dhuuxan u qaaday ma fahanti marka walaalo aniga jacaylka ninkayga jecelay waxa weeye xaq waa jacayl xaqa wallaahi wa billaahi wa tallaahi waa jacayl jihaad haddii uu jihaad jiro jacayl baan ku jihaadaya waa ku shahaadaya macamti haddii uu jacayl jiro jacayl baan jihaad ku gelaya sababta aniga waa nin jecelay iga kaxeeyo ma rabo I believe that in layga kaxaystay I believe that in laygu diray I believe that ninkayga in la sirxay wax lagu qabtayba because maxaa gurigiisa ka eriyay maxaa gurigiisa ka saaray maxaa gurigiisa ka eriyay dharkiisi baa yaala wallaahi naana been idin sheegayn dharkiisi oo uu xidhan jiray inaanu shay ka qaadan isagoo ordaya ayuu halkaa ka baxay dharkiisi uu xidhan jiray baa yaala sariirtaas aad arkayso waa taa $2,000 buu ka bixiyey soo maad garan daahiyada halkaa ku xidhan $300 baan ka bixiyey wallaahi jaakeedadiisa qaaligahaa ee adduunka ugu jeclaaba gurigayga yaala soo maad garan macnaha ninkayga aniga aamnood okay hilaal siciid cabdille caadi maaha hilaal siciid cabdille ma garanaysa aniga waa layga sii jeediyey waana la sii kala jeediyey sababtoo markaa la hadlo wuu i dagaali jiray anigoo si wanaagsan ula hadlaayo walaalo macaan tahay walaal maxaa kugu dhacay ayuu i dagaali jiray oo jiray naa maxaad ku hadlaysaa ma nabca uu rabaayo wala hadlaya marka waxa weeyaan qisadaas waa qiso cusub miskiin buu ahaa ninkan kaagan waji ugu qoranto hay soo wicin baa ku yidhi ima soo wici kartid baan kugu yidhi ima soo wici kartid bil fadlan hay soo wicin waa ku baraya soo aniga hay soo wicin walaalo jalas fooqal jalas ma haddaanad walaali dhegaysan karayno aniga qisadayda aanad dhegaysan karaynin in adeero macaano you go cid kuu baahan baaba iska yar anu ninba ma doonaya ninba ma rabee nin anigu addi kale adduunka ugu jeclaan uu iga tegay nin kalena ma doonayay nabadgelyo walaalo waxaan hortayana baray waad aragtaa inaan anigu mooshin ku jiro inaan life ku jiro maxaad walaal ii soo wacaysa hay soo wicna ilaahaaga ka baq walaal anigu gabadh laga tegay maanu ninkeedii nacay oo laga cararay oo la tegay waxa aniga marka kale ma soo wacanay igu saliday naadeer